dastuurkeena ayuu ka imanaysaa kala qaybsanaanta lafteedu dastuurku soo uga imanaya in dadkani waxa ay doonayaan ashacbu yuriid lagu saleeyo laakiin waxaad arkaysaa in ay aad loo kala qaybsan yahay waliba lagu kala qaybsan yahay marka ay noqoto qabiil iyo xaafad maxaa hadaba la food saaro ah qodobada food saar horta waxaan gabiga xeerka leedii sheegay inuu wareeriyay waxa ugu badan food saaro sharci baa laga dhigtaa maanta halkan xanuunasta waa xeerkii ururada aniga mukhtaris lama fahmi karno walaalkeen ka galaa horta هذا ما قرأت واحد لقيه بعدين كنا نتلاقى والحلبنا نضرنا معها هاي لكن برشرة كلون الريح يجري أنا نكبس لنا لو بعيا مرر بدن ضد المواطنين تأهي دورنا يقفوا وحيكون في كريين من كان طلقة أما حاجية دم طلقة ده شقة جاية ومركب مدحوينه وقول على إسقاط صدا صوتها وحين أركينا علايسك وكرسي مدحوينه ليه هاي تنقلها وكيلة يد جامد يوحى إذا اسمه قبصته وهالكاسة لقى جران كرا وطن كوردن يعني من كسياسيين تفوق سكود كرسي قاصو قرا إنه سارين هاي horta inta ugu badan dadka liidka ama dadka wax bartay ama ma galaan dawladda ama meelaha uma shaqo tagaan meelo kale u shaqo tagaan anaga ka kooba marka waxa u baahanahay in aynu noqono inay ku dhiirino bal horta systemkan ina saameynaya in aynu saameyn ku yeelano oo aynu ku shaqo tagno aynu saxno dabaradeeg yeelano kolba hadii inta nidaam inta baaki garayno mid kale ku go'no macna ma sameeyo macnaheedu waxa weeye warkan horta hore aynu samaysanay waxyaalihii ka qaldamay ma gufeynaa dastuurka laba qodob baa ka hadla qodobka 3/4aad iyo qodobka 2/8aad ayaa ka hadla waxyaalaha extensionka lagu sameyn karayo doorashada labada qodob kuma jiraan wax technical commissionku hadii ay isaga ka timaado miyaa la kordhin karaa mise lama kordhin karo waxaan astaa bariga waxaan soo gudbinay timeline aan leenahay hadaan commission karnay waxaan u baahanahay inaan muddada inta leeg aan ku qabsano maadaama aan abaar dhicin dagaal dhicin aafooyin dhicin musiibo dhicin aan istilin deewaana lagu qabsaday waxa lagu yiri maxaa idin geeyay idinku xataadan baashi ma qaban karno dadna halkaas wala daaq tagayna anu maanta ma tilmaami karo meel inoo bisil haday tahay culimo haday tahay maxay ahaday siyaasiyiin iyo haday tahay ganacsato oo ka daacad ah halkayna xanuunaysa ee bulshada bugta laakiin hay'adda UNDP la yiraahdo ama organisationada kale hadii position shaqo ka banaanaado ina keena aqoonyahankii aqoontiisu fuula oo haduu waayo iyo hadii uu helaba uu ku qanacsan yahay marka ma waxaan caawa iska dhaadhicinaa waxa institution yaro inaga dhex shaqeynaya uu ku guuleysay ayay dawladnimadana ku guuleysan kar laada no marka noocan system aan qaadanay iyo qabyaalada mashaakilkeena haysta long term waxaan kaga bixi karanaa waxaanu kaga bixi karanaa waxaynu kaga bixi karanaa inoo isku cadeynaa qabyaaladina weligeed bad cadaalad ma sameyn maxamuudow professor qabiil cadaalad sameey weli ma inaan arag ka soo qayb galayaasha guud ahaan mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhawaada mowduucan caawa oo ay soo agaasintay macadka ISIR kuna ciwaanaysan siyaabaha lagu yareyn karo muranada siyaasadeed ee ku dhisan loolanka iyo kala qaybinta oo ah waxa uu hadda ku suntan yahay wadcigeena siyaasadeed mowduucaas baynu caawa falanqayn doonaa xubno kamida aqoonyahanka Somaliland ayaa halkan banalka soo fadhiisan doona oo falanqayn doona su'aalo kala duwan aynu iska weydiin doonaa waxa kale oo falanqaynta qayb ka noqon doona qaar kamida xildhibaanada golaha wakiilada oo aan mid ugu yeeri doono si ay banalka u soo fadhiistaan laakiin inta aynaan u gudbin waxaan u yeerayaa mudane Maxamed Cabdiraxmaan oo ah agaasimaha macadka ISIR ee soo qaban qaabiyay si uu kelmadii noo yiraahdo inaguna furo maxamed soo dhaw assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadal badan uma kicin oon ka ahayn inaan idinku soo dhaweeyo madashan in yarna aan ka taabto ajandaha ama barnaamijkan ee nagu talagalnay guud ahaan waxay ka mid tahay doodaha la xiriira hanaanka dimuqraadiyadda Somaliland dabcan geed socod bay Somaliland ku jirtay muddo dheer bay isku daysay tajribooyin badan bay wali ku jirtaa wali final maaha marka bal inaan wali isku dayno inaan qaran dhiska iyo dimuqraadiyadeenta iyo qaabka aynu uga shaqeynayno ay noqoto mid aynu inagu
bulshadu wax ku darsatay halkan waxaan ugu talagalnay waxaan idhahnaa isir civic forum ama fagaaraha shacabka ama bulshada isir soo qaban qaabiso waxaanu ka mid yahay howlaha macadku qabto mid ka mid ah kolley gadaal baan ka sheegi doonaa waxaan isku dayi lahaa inaan in yar oo kooban ujeeddada iyo macadku waxyaabaha uu qaabilsan yahay aan in yar yaro taabto guud ahaan macadkan isir waa xarun cilmi baaris iyo dabcan tala bixineedba waa inay madax bannaantay marka waxa u muhiima waxa la yidhaahdo policy relevant research ama tala bixinno ha noqoto ama cilmi baaris ha noqoto laakiin kuwa la xidhiidha wixii siyaasadda la dejinayo door ku leh marka qaybta ugu muhiimsan ee uu maxadku qabtaa waa policy relevant research dabcan ama policy briefs ama tala bixinno iyo dabcan mararka qaar tababaro sida dhalinyartu ay u bartaan waxyaabo practical sida researchska oo kale iyo dabcan madashan isir civic forum oo iyada loogu talagalay inay bulshadu door weyn ay ka qaadato saan hore u sheegay waxaa tiir dhaxaad u ah shaqada macadku inay daahfurnaan yeelato inay hal abuur ay soo kordhiso inay wax ulajeedo leh oo objective oo aan ahayn wax maaragtay subjective ay ka shaqayso iyo inay kow iyo laba iyo saddexba shaqada ay qabanaysaa noqoto mid madax bannaan oon cidnaba garab saar la lahayn haddaan ku sii yaro dheeraado macadka muxuu ahaa isir civic forum ama madashan aynu caawa ugu talagalnay waxaa u muhiima inay tahay madal open ah oo bulshadu rayidku iyo dabcan ka soo qaybgalayaashu iyo policy makerska oo iminka ay inagala joogaan xildhibaanadu ay uga wada qayb qaataan si loo weelayo tala soo jeedinta aynu ka wada qayb qaadano waxaa kale oo inoo muhiima doodu kolley laba dhinac ama saddex dhinac baynu odhan karnaa ayay u badnaan doontaa kow waxaynu ka hadli doonaa geedi socodka dimuqraadiyadda somaliland xilliguu bilowday ilaa iminka caqabadihii ka hor yimid iyo ereygan aynu inta badan laga yaabo in aada looga hadli doono oo ah political polarization ama kala geyn ha noqoto ama kala fogeyn ha noqoto maxaa miyay xidhiir la leedahay qaabka dowladnimeenu qaadanay haddaad xidhiir yar ka dhexaysa ama aad dib ugu noqotid waxaa laga yaabaa somaliland intii ay tijaabinaysay geedi socodka dimuqraadiyadda markii hore dadaal badan bay ku dhaqaaqday laakiin intii dambe waxaa soo kordhay culture cusub oo la yidhaahdo political competition marka competitionka haddaynu naqaano waa sida sportska oo kale maaragtay wax barbardhac la yidhaha ama in qoladii kale ay guusha qaadato macno weyn ayay leedahay marka waxaa muhiima siyaasaddu hadday sidaa noqoto maxaa ku khaldamaya sidee loo sixi karaa dowladaha kale ee dunidu siday arrimaha noocaana uga shaqeeyaan haddaad u fiirsatid dalalka iminka dimuqraadiyadda inta badan ka shaqeynayay laftirkoodu dhibaatadan way haystaa laakiin waxaa laga yaabaa inay haddana waxyaabo kale oo systemka ay dhisteen ay barteen tusaale ahaan ereygan polarization oo kale xagga maraykanku markii hore ka soo bilowday waxay lahaan jireen berigii hore wax la odhan jiray bipartisanship oo tusaale ahaan waxaan xasuustaa maalin dhoweed oo xaaladda siyaasadda ee dalka aan ka hadlayay ayaa waxaan soo jeedintii aan soo jeediyay waxaa ka mid ahayd xalka ugu dambeeya iminka arrimaha laga gaari karo waxaa ka mid ah in golaha wakiiladu ay ku galaan arrinta wax la yidhaha bipartisanship laakiin maadaameynu iminka la daala dhacayno xaalad political polarization ah oo winner and loser un ku salaysan oo wixii la odhan jiray consensuska ama muwaafaqo aan lahayn weli waxaad arkaysaa in ay wax kasta ama ajenda walba oo yimaada uu dhinacuun isku runtii tulayo marka sidee ayaynu nidaamkan iyo nidaamkeenna uga ilaalin karnaa polarization ama kala fogeynta ama kala qaybinta bulshadu ama kala deganaantu baan idhaahne heer intee leeg buu taagan yahay bipartisanshipku heer intee leeg buu inoo marayaa ma jiraan ilaa imika kolley xildhibaanada golaha wakiiladu way nala joogaan bulshaduna wax badan bay ka og tahay xeerar badan oo iska kaashadeen dad kala aragti duwan marka bipartisanship afka qalaad af soomaali wuxuu ku noqonayaa xisbiyo laga yaabo inay xagga ka soo qaad dhaqaalaho kale midna uu top down aaminsan yahay midna bottom up aaminsan yahay laakiin si arrintaa looga dhaqaaqo keeni karaysaa in meel la isugu yimaado miyaynu heerkaa weli gaadhnay mise gaabku aad buu u ballaadhay arrimaha noocaasaan rajaynaynaa dhammaanteen inaynu ka wada qayb qaadano xal ku soo darno gebagabadiina waxaynu insha allah gacanta ku haynaa macad ahaan marka aynu hawshan soo dhammayno fikirka aad ka wada qayb qaadataan inaynu beber ama discussion beber soo saarno oo insha allah isku dayno inaynu weelano dhammaan wixii aan nidhi oo dhan
su-aasha ugu muhiimsan in hadda doonayna halkan isku weydiino waxa weeye waxtar iyo waxyeelo maxaa uu ka ummad ahaan uu inoo leeyahay innaga oo kaga jawaabayna ama ku eegayna polarizationka amaba kala qaybsanaanta la xidhiidha loolanka siyaasadda ee uu la falgalo su-aasha koowaad waxaan siinayaa dr maxamuud muddo 2 minute ah ayaan rajaynayaa inuu inoogu soo koobo jawaabta haddaan arko maxaa keenaya kala qaybsanaanta wax walba wuxuu leeyahay asal iyo farac buu leeyahay wuxuu leeyahay meel ay ka soo bilaabanto iyo xumad wax dambe oo keeno oo symptoms af qalaad loo yaqaano waxa keenaya horta marka koowaad waxaan doonayaa inaan yar ku dulqaato nidaamka aan qaadanay aad sheegtay ee hybridka loo yaqaano waxa weeyaan nidaam keenaya inaad dhinacna ahaan weydo shaygu hadduuna dhinacna ahayna tusaalooyinka ugu daran ee moogtahay quraanka ilaahay oo moogtahay manhajka ugu weyn aan haysanaa ama reference book ugu weyn aan haysanaa wuxuu ilaahay quraanka inoogu sheegay qolo la haula wala haula mudabdabiina bayna dalik la haula wala haula xaqana maaha xaqana maaha liberal democracy ma nihin traditional ma nihin dawaa mudabdabna waa nin hawada ku safarur xidhan nin hawada ku farur xidhan markaasi inuu dago ama uu moogtahay miir yeesho magacaas horta waxa keenaysa waasalka waana sharaxaya haddaan sharaxaad dib ugu noqdo horta dimuqraadiyadda ayaanu qalad ka fahanay koowaada dimuqraadiyaddu sideeda waxa weeyaan waa rule of people dadku waxay ku heshiyaan xeer ah ayaa la yiraahdaa dimuqraadiyadda dimuqraadiyadaasina dad baa laga hadlaya dadka laga hadlayaana waxay leeyihiin oo dad ka dhigaya oo dadka kala duwa waa dhaqankooga waa diintooda waa deegaankooga waa meesha ay ku nool yihiin marka ummadda Soomaaliland ama ummadda Soomaaliyeed ba si guud waxa wareerka iyo mudabdabka ugu wareersan waxa weeye kow waa ummad qabaa'ila beelaana nahay oo u samaysanahay qof individual ma aha laba waa dad muslin ah hase yeeshee nidaamkan la keenay ee liberal democracy ee dastuurka imika inoo qoranay waxa uu ka dhalanaysaa waxa weeyaan individual waa one man one vote waa multi party system waa nidaam reer galbeed nidaamka reer galbeedna wuxuu leeyahay qofku xooga saaraya nidaamka reer galbeed halkiisu ku saxan yahay laakiin community bulsho qabaa'ila kama dhex shaqayn karayo waana waxa keenaya kala qaybsanaanta waayo qof markaad weerartid la hadashid qof lama hadlaysid qabiil baad la hadlaysaa beel baad weeraraysaa beel baa markiiba isku soo arkaysaa marka dimuqraadiyaddu qalad ka fahanay baa kooka laba dastuurkeena ayuu ka imanaysaa kala qaybsanaanta lafteedu dastuurku soo uga imanaya way fadhiyaan xildhibaanadii moogtahay baarlamaanku soo uga imanaya dastuurku araarta koowaad uu ku bilaabaa waxay ka hadlaysaa wuxuu leeyahay isagoo ayidsan gareeqaanadiina way fadhiyaan isagoo ayidsan muxuu ayidsan yahay shirki burco markaa muxuu ahaa shirka burco Soomaaliland inta isku tageen beeleeyagu ayay yiraahdeen nooca dawladnimo ama xeerkeena kala wadaya ee qaadanana waa qaab ku samaysan qodobka shanaad oo akhriyaya wuxuu leeyahay nidaamka waxaan u qaybsanano ee dawladnimadeenu wuxuu ku salaysnaanaya beelo si cadaalad ah marka si cadaalad maxay noqonaysaa waxaan ka sameeyay 12 sano ka hor theory aan ka sameeyay oo oranaysa kaas muxuu noqonayaa ilaahayna cid uu ka dhigo magacaan waxaan u bixiyay ilaahayna cid uu ka dhigo tiradaana inta ku siiso marka waxay ahayd Soomaaliland xeerka ay ku heshiisay dastuurku ay aysan yahay intoo dadka la tiro koobo iminka bas loo tiro koobo ee national ID go la weyneeyay ila national ID waxa la qoraa beele xisbi lama qore xisbiyadu sidoo dastuur qorayo wadanka inuu xisbi yahay xisbi lama qore waxa la qoraa dee beel shaad tahay jilibka tahay iyo caaqilkaaga la qoraa intoo saa loo tiro koobo dabeedna saa waxba la isku qabsan balbalosation kana soo yaraado iyo kala qaybsanaantani in nidaamka la raacay ahayd amaba dastuurka laga saaray ay sanaantaasoo ma ay sanay wuxuu liberal democracy buu qorayaa xisbiyo badan buu qorayaa xisbiyada loo hogaansamaado oo abtirsiinta la baabiyo oo la tirtiro oo cidii lagu qabto qabiilka la tirtiro marka polarization waxa keenaya dastuurka xalku muxuu yahay marka haddaad weydiisid oo xaqii xalid khilaafaadka malaha sababta la igu yeedhay tahay xalku waxa weeye kow in dadkani waxa ay doonayaan ashacbu yuriid lagu saleeyo intaa waxaan ahayn oo lagu saleyn karaa ma jiro xildhibaanada ka fadhiyaan oo ay maqli doonaan see loogu salayn karayaa simply ma hadda dastuurka dhamaanteed in dib loo bilaabo dib loo furo simply xeerka ama kulman la bedelay imika maanta way bedelayeen qaar kamid ah xildhibaanadu ayaa la soo saaraya waxa lagu saaraya beelihii uu aysanaa dastuurku ayaa lagu qorayaa deedna wadada la tiro koobaya madaxtooyada wareegtina qoraysaa boroseshkuna markaa ma jirayo
cid walbana waa iska dhex arkaysaa 18 qabiilo Somaliland oo misal ku jiro ma taqaanaa Somaliland inta beelood degta 18 qabiil baa dega 18 kaasba wareegtay oo helaan madaxtooyada sare xaga kalena nin walba tiradiisa intuu helo oo ka dhigo karti aqoon lagu daro waa theory dhan oo halkan ka gayoobayn cid u baahanna mogtahay la wadaagi doono saasay la tahay waxaan ka fahmay faaladaada inaad tiri hal dhinac la isugu guuro halka dhinacna wuxuu noqonayaa kii dhaqanka ee bulshada u ahaa dhaqanka su-aasha labaad waxaan Dr. Maryam weydiin doonaa polarizationka hadda jira ama kala qaybsanka xoogga waxaan mar walba u raacinayaa bulshadu sida dabiiciga way kala qaybsan tahay laakiin polarizationku waa markay si ay xooga ay u kala dhambalanto marka kala qaybsankaas xoogga ay saameynta uu ku yeeshay wadajirkii iyo xidhiidhkii bulshada Somaliland heer bulsho ahaan Dr. kusoo dhawow jawaab aad baad mahadsantahay maxamed madashana waan salaamayaa iyo panelka marka ay noqoto social fabric ama community-ga say wada nool yihiin iyo ay soo dhex gasho xurgufi inta badan waxaa kala fikradaha lagu kala baxaa adduunkana way dhacdaa in la isku qabto fikrad ama la isku qabto hawl timid oo waddanka dhex timi ama dadka dhexdooda dhex timi maraykanka waad arkayseen markii Donald Trump Capitol Hill baa loo soo dhacay because waxay ahayd polarization bay ahayd imanka Somaliland maxamedna Dr. maxamedna ka dhawaajiyay dhibaatada ugu weyn ee jirta wax weyn marka ay timaado kala qaybsanaan ama xurgufi kala timaado waxaan u kala qaybsanaa qabiil baynu kala goonaa ma noqonayso dumar iyo rag bay haystee dumarkii ha aamusaan ma noqonayso dhalinyaradii odayaal waaweyn bay haystee dhalinyaradii ha iskaga dhex baxaan ma noqonayso waxay noqonaysaa yaa adiga ku matalaya walibana oo ah qabiil haddayna noqon lahayn social fabric haddaan ku yar noqdo in yar adduunka see loo dhisaa sidee buu qof ugu noqdaa intimaa ama aad qofkan aad adigu aad isfahantaan iminka kale aniga Dr. maxamed waxaanu qabiilkaanu nahay waa caafimaadka haddaanu caafimaadkaanu soo eegno oo nidhaahno aniyo maxamed iyo qof kasta oo annagana matalo oo ah health professional ama shaqaale caafimaad keebaa annaga noo saxa keebaa aanu ku tacalluqaynaa ama xisbigeenu dooranaynaa ama keebaanu because caafimaadkii haddii la eego health actigi ma jiro Somaliland imika kale dadka shaqaalaha caafimaadka ama shaqaalaha kale ama kuwa maxaa la yiraahdaa waxbarashada social workerska gabigood waxay leeyahay loo dhisi lahaa markay jaamacadaha joogaan ama ay iskuulada joogaan adigu qofka ku matalay waa qofka aad arkaysaan mustaqbal sax ama mustaqbalkiina aad ka wada arkaysaan imika mustaqbalka kaliya ee Somaliland jira wax weeyaan qabiilkayga xaqu maraya yaa noqonaya madaxweyne yaa aniga xageemu maraya maxaa la yiraahdaa soo taas waxay sababaysaa si fool xun in loo kala go oo ah maxaa la yiraahdaa laabta la isku qaraac waxayna ka muuqataa social media inteena badan social media waan isticmaalnaa ama Facebook ama TikTok ama ha noqoto Twitter inta ugu badan hal ka dhigaan si yaro entertainment ah u soo dhigaan dadka qaar laakiin waxaad arkaysaa in ay aad loo kala qaybsan yahay waliba lagu kala qaybsan yahay marka ay noqoto qabiil iyo xaafad iyo iminka kale maxaa la yiraahdaa deegaanadu aad u kala furfurmeen qabyaaladii kor u kacday aad lagu weydiinaya xitaa marka qaarkood randomly baa lagu weydiinaya adigu maxaa la yiraahdaa xisbigeed taageersantay just sida lagu ogaado xagaad ka soo jeedo ama qabiilkaaga la deedeeyo marka waxay noqonaysaa iminka kale markii aan arkay maxaa la yiraahdaa su'aasha waxaan yar baadhay sideeba wadanadii kale sideeba uga baxeen ama sideeba social fabric markuu dhex galo politicska sideeba loo kala saaraa Venezuela kale aad wada ogeydeen waqti dheer baa ku jireen dagaal researchkaas waxaa soo saartay London School of Economics waad baadhi kartaan waxay yiraahdeen dadka ugu badan uu saameeyo polarizationka ama politicska marka lagu kala qaybsan yahay waa dhalinyarada iyo dumarka maxaa waay because waa la isticmaalaa
waxaa loo isticmaalaa maxaa la yidhaahdaa qofka ajendada wata ayaa dumarka iyo dhalinyarada isticmaala haddaad exactly dib ugu noqotaan inta video la duubay inta maxaa la yidhahdaa inta hadlaysay waxay ahaayeen dumar odhanaya annaga reerkaygii maxaa la yidhaahdaa dumarkaasoo wax alla wuxuu qabiilku maanta u wada aanu jirin haddana waxay u arkaan because of waa matalaadoodii ama maxaa la yidhahdaa waxay ka dhex arkayaan qofkii ay ku tacalluqsanaayeen ama ay doonayeen qayb weynna way ka noqon kala jabinta bulshada iyo heerka bulshada inay u qaybsanta bulshada way u kala qaybsamaysaa markii dhalinyaradii la isticmaalo si aad uga sii wado okay su'aal kale aan u gudbo okay fine qaybta dumarka waxaan siin doonaa faalo gaar ah fine su-aasha xigta waxaan weydiinayaa injineer cabdilfataax oo runtii in badan qayb ka ahaa komishankii doorashooyinka ee ka garsoorayay mawduucan aynu ka hadlayno su-aasha isweydiinta leh markaa waxay tahay inta badan doorashooyin kala duwan baa waddanka ka dhaca doorashooyinka qaybsanaanta xooggan midda keentaa waa midda madaxtooyada weeye inta badan doorashooyinka golayaasha kala duwan ee heer deegaan iyo heer wakiilo qaybsanaantay keentaa ma gaadhsiisna tan xooggan ee cabsida keenta marka waxaan weydiinayaa injineerka sababaha loogu aanayn karo inay in badan doorashada madaxtooyada u tahay ta aad u kala qaybisa bulshada aan si kooban haddaan uga hadlo laba qodobun baynu ku soo koobi karaynaa waxba inaan sii tegin mid waxa weeye galdaloolo ku jira shuruucdeenna oo deetana halkaa qofka bini'aadmigii uu ka dayo dusmadiisa iyo waxa keenaya khilaafaadka midna waa tii dhabta ahayd damaca qofka bini'aadmiga ah soomaalida damac iyo dacaribo kama dhamaata dadka aynu naahno ragayna odhanne markaa damaca bahalkaa kursiga mushkiladdu halkay ka timi mushkiladdu kursiga ka timi wuxuu yidhi ninkii ogaadayna yimi magaalada dhib waxay la guuxaysaa iga gadiyo kaa gadi maayo magaalada dhan waxaa la isku haystaa kursigaasaan u baahnay iga kaciyo iyo kaaga kici maayo horta mushkiladda ugu weyne taallaa waxa weeyaan kursiga laftigiisa yaala maxaa haddaba food saaro u ah qodobada food saar horta waxaan gebiga xeerka laydii sheegaya inuu wareeriyey waxa ugu badan food saaro sharci baa laga dhigtaa waxaan caawaysid baraadii dhowrkan doorashooyinka maxaa wasala midi waa xeerka aad arkaysaan waa kawa kuugu inuu markii la isu keenay dhammaan doorashadoo dhan waxaa ku saabsan deegaan iyo baarlaman iyo madaxweyne iyo halkaasaa la isugu keenay codbixiyaan midi waa kaa iyo dastuurka qaranko isaguna waa kaa waa dhowrkaa beej waxaa soo raaca xeer footiinkood muddo ka nuskii weyd yaroo intaa leega waa intaa horta inta ina wareysiintaasuun bunimba meel uu ka soo gala waa xeerarka aynu had iyo jeer ku gabanno waxyaalaha markaa keena waxaa ka mid a mararka qaarkood xeerarka laftigooda oo waqtigii la samaynayey aanay jirin aqoon doorasho aynu lenahay brofesorkaan raaco aqoonta doorashooyinku may ahayn wax ummadeennu marka hore kusii dhaqmaysay deetana waynu soo naqlinay waynu keennay deetana waxaynu ku dhaqanno deetana aqoontii samaynaysay doorashooyinka laftigeedu way ka maqnayd haddaad meel walba eegto qabiyaa ka muuqata markaad aragto dhinaca doorashada oo kaasi waa qaybtii dhaxalka ee ay la timi gaboodfalkii wixii ka maqnaa qaybta labaadna waxa weeyaan qayb ah badheere inuu qofku u badheerayo isagoo arkaya ayuu haddana qadiyaddii u badheeraya badheeradaasi laba arrimood bay noqotaa mar sharcigu ugu soo gabadaa oo sharciga laftigiisa ayaa gabasho u noqotaa waxyaalaha had iyo jeer uu keeno taasina waxay keenta inaynu qorno xeerar muddo yar oo kooban lagu dejiyo waxaanay time sensitive ay dhahdaan wixii oo taagan baa la rabaa haddana xeerkiisii in la sameeyo tusaale yaroo kooban aan idiin sheego xeer footiinka markii la samaynayey ayaa waa la soo unkay waxaa laga hadlayay ururada guddidan ururada deetana guddida ururada haddaad ogtihiin marka hore guddida ururada iyada ayaa komisha ka dhashay markii hore 2000 markii iyo kowdii markii dastuurka la qabtay ururada ayaa jiray markaa kadib uu komisha ku sameeyay haddana mar labaadkii baa leeyahay hal la sameeyo guddigii ururada aqoon-yahanaa yimi aqoon-yahanadu waxayna war guddigan ururada maxaa uga baahan tahay commission baa idiin jireen hadduu commission idiin jiro commissionkan miyuu hawshii idiin qabto isagaa hawshii qaban karaye dhaqaalana waa ka cabanaysaano waxaa leedihiin dhaqaale ma haysano nacaawiya haddana hay-ad kaloo baarala labaad ayaad samaynaysaan haddaad u baahan tihiin dad ku kabtaan miyaad dad ku kabtaan haddaad leedihi commissionkii qawadaysaan aqoontii baa jirta xeerku waa intan aad arkaysaan la fulinayo war hay-addiinan xoojista haddana waxaynu samaynay xeer kaloo 14
laba arrimood buu ku yimid degdeg lagu sameeyey arrimaha qaarkood malaalka kuma fiicina ka sheegee degdeg lagu sameeyey xeerka deetana qabiidiisa mar walba way jiraysaa iyaduna waa qaybta mararka qaarkoodna yaa un ka xeerka laftigiisa xeerku had iyo jeer halkay ahayd ama hay-addii ay khuseynaysay inuu sameeyo ama ciddii aqoonta u lahayd ayaa marar dhexe waxay samaysantaa inay meel dhexa ka unkanto taasina galdaloolooyin badan bay u yeeshaa deetana taasina iyaduna waa qadiyad meesha ku jirta qadiyadda kale ku jirtaa waxa weeye iyaduna wax la kala riixanayo xeerka laftigiisa ayaa marka la sameynayo waxa loo sameeyaa had iyo jeer in kolba ciddaa doonaysaa qaabka uu u leegyahay bal matalan haddaa eegtaan daraafyada laga sameeyey guurtida sida loo dooranayo 3 xeer baa yaalla imaka anigu intaan arkay 3 xeer oo kala duwan mar walba markaad aragtay xeerkaa guurtidood garanaysa xaq uu socdo mid waxaad arkaysaa inuu doorashadii halkaa ula socdo mid boqolo awood siinaya waxba inaan halkan carabka ku ballaarin waa guurtida waa sababtayna keentay ilaa imaka inay halkaasi qabiyadeeda tahay mararka qaarkoodna waxa keena qabiyo ayaa isku dhaca laftigeeda keenta qabiyadaasi waa maxay imaka balaadmiga waxa marka laga hadlayo goboladu siday u kala helayaan saamiga waxay ahayd dadka soo maaha in la tiro koobo deeta marka la tiro gobol lagu saleeyo gobolkaasi inta uu xildhibaan helayo ilaa maalintii aynu qadanay ilaa iyo malikaa maanta wali qabiyuku ayuu ku jira isaguna wuxuu ka mid yahay qabiyooyinka waxa isaguna ka mid ah qaabkii hore aynu ku soo jirnay cuqaashu mar allaala iyo markaad caasimadaha ka baxdo waxa awood yeeshaa dadka dhaqanka marka dadka dhaqanku ay awood yeeshaan shuruucdu way sii yaraataa weyd because qofkaasi il kaliyu leeyahay ishaan wuxuu ku arkaa reerkoodu muxuu ka helayaa qadiyadda markaa lagu jiro ayuu ka helayaa marka waxaa kusoo koobayaa un meelo badan mar waxa sameeyo waa qaybta uu sameeyo qofku qaybta kale waa qaybta shuruucdeeda intaanad soo koobin aan kugu yar celiyo sababaha ay doorashada madaxtooyadu ay aadka ugu qaybiso bulshada ma la odhan karaa waxa qaybka awoodaha madaxweynuhu sida ay u qaabaysan yihiin sharci ahaan oo awoodihii dalka in badan oo ka mid ay ku urursan yihiin halkaas resourceskii awoodihii fulineed marka bulshadu ay eeganayso uun madaxtooyada halkii ay ka eegan lahayd xilalka kale iyo wakiilada la soo doorto malaasi aan uga cadaalad falo aan idhaahdo sida ay isu kaabayaan saddexda dhadhaar ee qaranku uu ka kooban yahay waa ka qayb waxay ahayd haddii madaxweynaha laftigiisu uu faala uu badsanayo inay labada dhadhaar ee kale laftigoodu ay noqdaan iyaga laftigoodu kuwa xakameynaya ama hakinaya ay yahay marka damicii waani ku daray kursi kasta ha noqdaa ma deegaan ha noqdaa ma baarlaman ha noqdaa ma madaxweyne ha noqdo madaxweyne kasta oo jira cid alla cid ay doonto ha noqoto damacaasi uu jiraya sidoo kalena waxa aan jirahayn wuu arkoonayaayo ama dhadhaaradii kalena waanay xakamaynahayn sidoo kale isaga laftigiisuna wuxuu arkaya galdalooladii uu jiray aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay marka haddii awoodaha madaxweynaha wax laga dhimo qaybintay bulshada ku keento doorashadeedu way yaraan kartaa si kale oo dhigi karna haddaan shuruucdeena adkayno waxa deetana meesha ka bixila damci markuu damcu ka bacana deetana waxa suura gali la inay qabsado aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay su'aasha iigu xigta waxaan isweydiin mudan dadka bulshadu hogaamiyeyaal waxay leedahay heerar kala duwan ah hogaano siyaasadeed baa jira kuwii dhaqankaa jira dadka waxbartay ee iliidka waxbartay laftarkoodu bulshada way hagaan marka su-aashu waxa weeye kaalin noocee ah ay dadkaasi ay ku yeelan karaan yaraynta kala qaybsanka bulshada su-aasha waxaan weydiinayaa doctor maxamuud waxaanan u raacinayaa waxa uu tilmaamay in nidaamkan isku dhafan ee hybrid systemka aynu nidhi inaan la wada qaadan karayn uu inaga dhigayo laa ilaaha ulaahi walaa ilaaha ulaahi siduu tilmaamay inaynaan dhanna jirin marka haddii lagu noqdo nidaamkeenii dhaqanka modern stageku ama dowladnimada casriga ee xeerarkii iyo meelo fara badan bay gashaa ma kula tahay in laga maarmi karo بسم الله الرحمن الرحيم ها ولا مارم كراه وانا لغو شقيي qaabka ah community say u dhisan tahay ama bulshadu wadankaas ay u dhisan tahay oo lagu saleeyo oo ahayn kan liberal dimuqraasiga ee one man one vote ka oo qoro community iyo beelihii la tixgelinayo adduunyada ma ku shaqeysaa meel kale ma ka jira successful ma noqday ha labada wadan ee adduunka ugu nabadda ugu degan adduunyada labada wadan ee ugu degan adduunyada ee loogu majiriga badan yahay ma taqaanaan waa Switzerland iyo Singapore labadu waa beelo Switzerland
waa in yaroo waddan yaroo central Europe ku yaala oo markii hore laga faanay oo buuraleeya oo la kala tegtegay 6 qowmiyadood baa isku soo haray yaroo Swiss yaroo Jarmal yaroo Talyaani yaroo 6 qowmiyadood baa isku soo haray qowmiyadaas waxbay wadaagaan dusha federal system bay leeyihiin laakiin way isku cadeeyaan beelay wax ku qaybsadaan waana waddanka qura UN-ta diiday inuu ku beero aqoonsiga raadinayna Somaliland saa raadinayso kale diiday waa waddanka qura UN-ta cashuuray waa waddanka qura dan UN-ta ka maar weeday waa waddanka qura imika ay ku wada hadlaan bariga iyo galbeedka marka wada hadlaan qoduhu ay tagaan waa qabaayil ku dhisan yahay waddanka kale Singapore la yiraahdo ee magaalada yar ahayd ee ka goday Malaysia ee adduunka lagu majiir boog yahayna waa qabaayil ay Chinese ku badan yihiin iyo Malaygu oo yara way isku cadeeyeen way kala qaateen wax nidaamkooda saas ugu shaqeeyaa marka uu shaqeyn karayaa si la isku waafajin karayaa waan yiri waa theory dheer oo aad u dheer tusaale yar oo gaan soo qaato مثلا dadka waa la tirakoobaya marka la tirakoobo Soomaaliland 18 qabiil baa degan oo badankoodu sanaaga ay degan yihiin iyo gobolka Gabiley ama degmada Gabiley 12 qabiil baa degan gobolka degmada Gabiley ma taqaanaan gobolka Gabiley hada qabiil markaan leeyahay waxaan tirinayaa anu de xalinta khilaafaadka ka imanaya beelaa waan sheegaaye isaaq mid baan u tirinayaa iyo 12 qabiil oo kale halkan Hargeysa Maroodijeex ku nool oo gobolka Maroodijeex bay ka tirsan officially degmada Gabiley kuwaas kor gaar loo tiriyo ee la isku cadeeyo waa la tirinayaa qabiil walba intay noqoto waxa la yiraahdaa tirigayga ilaahayna waa cid uu ka dhigo tiradaan ku siiso horta waxa yaraanaya qabyaaladda iyo munaafaqada iyo kala hadalka la hawla waxa aanu ka marqaad ka baqaa halka in gaarsiinahay bararku inuu gaarsiiyo adduunkeeni waa aragnaayo de meel inama gaarsiiso 30 sano soconaayo waxbarashada dad eegtid caafimaad dad eegtid adeeg hadad geedid suu injineerku sheegay halkan 5 kilomitir dad baxdid imika halkan aad gaadhid aan qol cadaynta aad gaadhin halkan aad joogno hadda aad gaadhid dawladda baa ka talinaya kama taliya booliis iyo xeerar kama taliyaan dhinac walba dad u kacdid marka waxaan ka baqayaa bararkaas inuu xitaa ina gaarsiiyo munaafaqada aakhiro ina munaafiqiin fi darkil asfal min an-nar noqon waayo qof kasto inaga mid yihiin dusha markuu joogana waa idealist iyo qof fiican oo qabiilan ahayn oo neutral oo fiican oo hadhow marka tagno xoranaya war maxay la siiyay reer tolo maxal laga siiyay marka bararkan leenahay haysan horta waa caynka waayo hadda tiraa imika Soomaaliland qabaayil wax ku qaybsataa midalan oo la moogtahay wasiiradu waa qabaayil waa been because qabiil yaqaan ma jiray intuu yahay in baloorku intuu leeyahay qabaayil maaha haddii la yiraahdo xisbi de ragii wadani iyo waaweynaa mucaarku waaweynaa dawladda xubinka wasiirada muhiimka ah xisbi maaha qabaayil maaha karti aqoon maaha waxay wadaagaan dhufsanayaasha ay wadaagaan wasiiradu lama yaqaano maxaa wasiir lagu noqdaa wasiir waxbarashada maxaa lagu noqdaa wasiirka caafimaadka maxaa lagu noqdaa agaasimaha maxaa lagu noqdaa marka karti maaha oo aqoon maaha hybrid marka sheegay horta aan sharaxno karti maaha wadankeenu imika wuxuu dhisan yahay aqoon maaha oo qabaayil maaha marka aad maxaa ku dhisanahay la hawla meeshii laga helo inuu meeshii laga helo Dr. Marian si ay faaladii roolka haweenka iyo kala qaybsanaanta bulshada siyaasadda la xiriidha ay uga tiraahdo hal daqiiqo iyo badh waxa marka ay noqoto qabyaaladii un bay sii soconaysaa I think maanta malaha systemka weyn la hay'adin qabyaalad ka hadalnayda waxyaabaha ugu weyn ee ugu problemka badan ee dumarka haysta waxa weeyaan inay leeyihiin double vision ama double ka ay ku wada nool yihiin hybrid kaas baan ku wada noolnahay as a woman xitaa marka ay noqoto siday u hadlayaan iyo cid ay taageerayaan iyo markay soo baxayaan iyo waxay noqonaysaa ama u food gareynayaan inta badan waxay noqotaa uun qofkii la ahaa haybta marka ay noqoto markaan systemkii eegna aan iska dhex weynana waxaan idhaahnaa waxbana lama siino dumarkii dhinacii democratization-kan ayay noqonaysaa gabadh kastoo maanta Somaliland haddaad wareysatad ku tiraahdo maxaa lagu siin laayay dee waana loo diidan yahay lama dooranaya ama lama rabo markii ay noqoto iyaga gacantoodii markay ku heshana that's again the challenge marka ay noqoto problemka kala qaybsanaanshana kow bay ka noqonayaan maxay kow ka noqonayaan iyaga ugu badan marka ay noqoto inay dadka abaabulaan soo kiciyaan tolay yiraahdaan dumarka ayaa ugu badan iyo dhalinyarada waana energy-ga la isticmaalo taasi maxay keenaysaa research-kii aan daba socday waxay keentay markii Venezuela wadankaas ayaan ku noqonayaa waxay keentay in unemployment-kii kor u qaado oo dhalinyaradii qaar ka badan laga soo eriyo meelihii kuwii kale ay ku xoog badnaayeen oo inclusion-kii ay ka baxda meeshii oo la exclusion lagu sameeyo waxay noqotay marka dhinaca
xaglay ama dhinacaad ka hadasho ama dhinacaad tiraahdo waxaasi wuu wanaagsan yahay dhinacaan istaaga kolba dhinac lagu sawirayo oo lagu samaynayo qaybsashadii oo kale iskuuladii oo kale maxaa la jaamacadihii waxaas dadkii lagu kala saaray oo lagu kala inaga heerkaa may gaadhin laakiin waxay noqonaysaa waxaynu tahay inaynu ka hortagno waxaan u yeedhayaa qaybtii labaad baan u gudbayaa waxaan u yeedhayaa xildhibaan mukhtaar xasan maydhane iyo xildhibaan xasan saleebaan dhuxul laab saalax xildhibaan kusoo dhow isir dood qaybiyaha mudanayaasha kale mudane xasan iyo akhyaarta kale panelka ku wada jirno intaba iyo mudanayaasha iyo asxaabta kale ee halkan soo fadhidaba aad baan u salaamayaa miyay jirtaa si looga bixi karo murankan imika taagan walow lagu kala gadisan yahay oo lagu kala aragti duwan yahay oo golaha laftarkiisu aanan wada ahayn yani golahay ka wada socoto waana dabiicadda arrimahan ku dhisan loolanka ama tartanka ku dhisan waxaa la isweydiiyaa had iyo jeer falsafadu halkay ka bilaabantaa aragtida uu qofku ka leeyahay noloshu halkay ka bilaabantaa inta badan waxaa laga soo bilaabaa ilaahay dabeetana waxaa dib loogu noqdaa waxay u yaqaanaan state of nature dadku asalkoodii hore intaana ilbaxnimo iyo waxaani aanay dikayn sidee ahaan jireen baa ayaa laga soo eegaa dadku ma qabiil bay ahaayeen ma qof bay ahaayeen waa doodii hore ee hybridka yani halkay kaga jirto isku dhafnaanta dhaqanka iyo ay kaga jirta weeye marka uu arrimahan loolanku markay jiraan waxaa soo baxaya mar kastaba siyaabahay bulshadaasi u kala duwan tahay ay isku qaban karayso inta badanna dee laba jid baa lagu kala baxaa jid waa jid cadaawadeed oo waa gar cadaawe idhaahdaan waa jid xeer ah oo shuruucdu qaado garta marka garina laba nin kama wada qosliso jidna waa jidka inta badan suluxa ah ee wax isku soo jiida ee isku soo dhaweeya weeye waxaa laga yaabaa in aada loo dhaliilo ka suluxa marar badan sidii inta badan aynu arki jirnay dhawaanahan oo dhan waxyaabaha uu isku dayo xeerkuba asalkiisu waxay dhahdaan waa restoration of justice waa in dib loo soo celiyo wixii la isyeelay marka aragtida laakiin waxa kala duwan waxa dadyawga loo yaqaano traditional societies ama bulshooyinkii dhaqanka ahaa aragtida ay ka qabaan waxa dib u baahan in la iskaga magdhabo la soo celiyaa ma waxa weeyaan un qoonta la isgaadhsiiyey mise xidhiidhkii dadka ayaa ku jira waxay ku daran markaa bulshooyinkaasi xidhiidhka dadka in lagu soo celiyo siday ahaayeen ka hor markaa ay qoontu dhacday jidadka sharcigii ma raadiyaan taa laakiin waxay iskaga magdhabaanuun wixii nabar ah ee la isgaadhsiiyo labada qofna waxay ka soo qaadaan inaanay berrito isgaran doonin oyna waddada ku kulmaynin teenii markaa dhaqanka ahayd ee marka hore horta wax isku soo jiidi jirtay dabadeetana miiska sharciga dul iman jirtay waafajin jirtay waxaa lagu heshiis yahay baa soo gabagabootay waxay noqotay tan kale ee markaa iyadu ah dee jujuub baa la is odhan karaa oo ah in cod iyo waxaa dee lagu kala baxo markaa gartu dee laba nin kama wada qoslinayso xilliga noocaasa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan mikrofoonka ku wareejinayaa xildhibaan xasan laab saalax oo isla su-aashaasi weyga furan ee is-afgarad ee hadda lagaga gudbi karo qaybsanaantan hadda taagan waktiga dheerna inaanay soo noqnoqon lagaga gudbi karo waxaan u raacinayaa su-aal kale oo ah waa maxay kaalinta hogaamiyeyaasha dadka bulshada saameeya ee aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta iyo bahda fankaba kaalinta uga bannaan ee ah inay dabciyaan qaybsanaantan bulshada amaba gaashaan ay uga noqdaan inta aanay dhicin marka labadaas su-aalood ayaan siinayaa iyo muddo 5 minute ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa keligii mahad leh waxaan bogaadinayaa u mahadnaqayaa
isir waxaan salaamayaa ka qaybgalayaasha iyo marti sharafta kale oo iga muuqdaan dad bulshada wax badan kusoo kordhinaya walaalahayga hablaha tartamay iyo guuleed halkaa ka arkayo iyo inta kale markaan hoos ugu daadego marka koowaad horta bal khilaafaadkan waxoogaa ka odhanayaa sideeda bannaanba khilaafaadku waa astaamaha guuldarrooyinka saa la socotaan mana keenaan wax dheefa oo ay bulshadaasi ka hesho balse kala guur iyo kala gurasho ayay khilaafaadka oo dhami keenaan bini aadamkuna kolba khilaafaadka inta ay ka cararaan waa hadbay inta ay maslaxadda iyo wadajirka iyo danta ka shaqeeyaan waxaad ogaataan mar kasta oo wada hadal yimaado waxaa yimaado isafgarad haddiiba uu isafgarad yimaadana waxaa yimaado heshiis haddii uu heshiis yimaadana waxaa yimaado xal haddaba mushkiladaha siyaasiga waxay u baahan yihiin xal siyaasiya waxaa la isku raaci karo haddii ay adkaato in la helo waxaa furan waxaa la isku raaci karo in la yeelo xaaladda somaliland ee maanta way fiican tahay inaan dul istaago balse waxaan doonayaa in aan hoga tusaale kala dhinac ka soo geliyo waddan kasta oo dimuqraadiya oo innaga inala mid ihi khilaafka siyaasiga sidoo kale had iyo jeer wuu ka dhex jiraa waana wax ka dhex dhacaa laakiin waxay isku qabsadaan keliya taa tirada iyo codadka doorashooyinka balse iskuma qabsadaan maalinta doorashadu dhacso mashaakilaadkeena ugu waaweyn innagana haysta waxa weeye inaynu farsamo ahaan isku qabsanno xilliga ay doorashadu dhacso haddaan isweydiino ayaa saameyn ku leh qabsoomiyadda doorashada way fududahay inaan si fudud u sheego cidda farsamo ahaan iyo qabasho ahaanba saameyn ku leh komishanka ah ka qaybgalayaasha oo xisbiyada iyo ururada noqonaya iyo cidda haddiiba khilaafaad labadaas oo kala dhex galo ama muddo xilid yimaado guur sidoo kale inagoo waxaasoo dhan og haddana xeerarkeenna waxaa ku jira qabyo fara badan mudanayaasha golaha wakiiladan ka tirsanahay waxaa laga yaabaa aragti mukhtaar inaan kaga duwanahay dan baa na midaysa waxaa na mideeya mas-uuliyad wadareed haddana weli waxa bulshada saameeya inaan isla qaadana waa qayb ka mid a waxa naga dhiman markaan si fudud su-aasha halkan ku taal lagu soo dhawaado 5 qodob baan anu kusoo koobi karaaba 5 qodob horta marka koowaad si kala qaybsanaan bulsho looga baxo waxaa loo baahan yahay in dadkeenu bislaadaan oo aqoontoodu korto oo ay u bislaadaan dantooda maslaxadooda iyo wadajirkooda bislaantaasi waxay ku tusaysaa inanka dhalinyarada ah ee 20 jirka ah ee maanta mustaqbalka u baahan ee nolosha ku dayoobay uu kala garan waayo waar in adeerka in la geeyo wasaaradda biyaha iyo nid biyo nadiif hesho midkay ku muhiimsan oo nasiib darro in su'aalaha caynkaas jawaabahooga dhalinyaradeenna markaad eegto baraha bulshada iyo falcelintooda in ilaa imika ay ku jaawarsan yihiin markaa bislaan ayaan qodobka koowaad ka oran karaa qodobka labaad qabyaaladda saameyn xooggan bay ku leedahay kala qaybsanaanta bulshada qabyaaladdu markaan la isdiidsiinayn laakiin waxa isweydiin mudan dadkeenu maxay u rabaan in reerkooda qofka kursiga ugu sarreysa dalka ku fadhiisto iminka haddii uu cabdifataax noqdo madaxweynaha qaranka dee reerkiisa oo dhani ma nimcoobayaan jannana ma durduuranayaan laakiin waxaan isleeyahay waxay u rabaan keliya taa inay ku faanaan oo yidhahaan reerkiina reerkayga xukuma noloshuna ku faan way ka weyntahay waxaynu u baahannahay in sidaas si ka duwan aynu u wajahno oo qabyaaladdu marbay waxtar leedahay marka loo eego kumilanka dimuqraadiyaddana khatar bay leedahay iminka haddii dhakhtar lagu dhigo waxaad u baahan tahay faleebo waxaa laga yaabaa ka ku xiga inaanu faleebadaasi kaa bixin hadda ma garatay laakiin haddii ay wax disho way ku difaacaysaa qabyaaladii dhinaca markaan ka eegno waa soo koobi waxaa qayb ka ah kala qaybsanaanta iyo muranka jira ee dadkeenu ay madaxa iskula jiraan ee isku naceen ay ku kala fogaadeen waa qabyo sharci xeerarka intay noo samaysanaa
qof waloo inaga midihii amba xildhibaan ha noqdo anuu iska saari maayo dhinac buu ka akhriyaa dhinacaas waa dhinaca dantiisa ah in shuruucdeenu inoo dhammaystirmaan oo imika waxay noo dhammaystiran xeerkii doorashooyinka madaxweynaha iyo waxay noo dhammaystiran wakiiladoo kale maanta halkan xanuunasa waa xeerkii ururada aniga mukhtar islama fahmi karno walaalkeen ka gallaa horta hadda ma garatay waxaa laga yaabaa idinkuna inay tiraan wal xildhibaanadan dooran maxay ahaayeen laakiin barasharo kaloona riixayaa jira inaan ka bislaanaa loo baahanya qodobka kale ee aan isleeyahay waa lagu yareyn karaa waxaa kow ka ah ma nihiin ummad wax ka barata khaladaadka ma maanto keliya hataa doorasho laisku qabsaday laba nidaam bay somaliland soo martayoo mid waa kii ku dhisnaa habkii qabaliga ahaa ee 2000 wixii ka horreeyey kaasi haddii khilaafka doorashadu uu soo yimaado waxaa xallin jiray odayaasha iyo gurtida laga soo gudub oo loo diga rogay nidaamkan casriga ah imika xisbiyada badan doorasho aan la isku qabsan oo murankaygu taagnin ma jirto marka khaladaadka laftirkiisa waxba kama baranno waxaa laga yaabaa 10 sano ka bacdi haddii ururadan imika la doonayo in la furo ay dhamaadaan waqtigoodii ururo kale in haddana xaaladda maanta taagan la soo istaago waayo waxba khaladaadka kama baranno haddaad imika wadamadan carabta tagto oo taxi raacdo taximeterku kuu daaranayaayo dee meesha rabti ku geynaya hadduuba kuu arko inaanad garanaynin kula warwareegaya laakiin haddaad khaladkiisa ku qabato lagama yaabo in mar dambe uu kugula soo noqdo war inaga beertii awowgaa kugu qabsa awowga ayaa adeerkaas ku qabsadeen ayuu inankiisii kugu qabsanayaaba marka waa mushkilad taagan kala qaybsanaanta kale haddaan qodobka koowaad kusoo gabagabeeyo komishanka doorashooyinka qaranka inay shaqadooda joogteeyaan oo iminka diiwaangelintoo kale marka loo baahan yahay waqti baa loo cayima inay shaqadan xafiiskan noqoto shaqo socota oo qabyatirkeedu mar kasta ay naga hadho ayaa ka mid ah waxyaabaha kala qaybsanaanta keenaya waayo murankii baa soo degdegaya mikrofoonka xaggaasaan keeni doonaa kadibna xaggan bay kusoo noqon doonaa su-aalihiina iyo faallooyinkiina iyo su-aalahan waan ii harsan waan mar labaad ka doodi doonaa mid horta faallada maxamuud theory-ga waa wax horta lagu farxo dee weli maynaan maqal qof theory wada ama jaamacad ha noqoto ama markaa taasi waaba wax dee lagu farxo laakiin waxaan su-aashii isyaro weydiiyey odhanaysaa moralitygu sidee u aqbali kartaa in dee waxa aynu yeelno tusaale ahaan oo kale sidee uu moralka dadku u yeeli karaa nidaam ahaan inaynu nidhaa saf soo galo oo wixii isu qori tuura inagoo dee adduun ku noolo international laws iyo dee magaranaysa ay waxaasi jiraan ilan janga lowgii maaha taasi waa su-aashii labaadan qaba waxa weeye boralizationka ma laga yaabaa haddii aynu resource-kan aynu kala eryanayno ay dadku kala eryanayaan meesha laga saari lahaa aanu muhiimba ahaadeen tusaale ahaan haddii dadku ay si fayra u shaqo geli laayeen oo shaqaalaha dawladda si dhaxa loo qaadan lahaa iskoorashibyada si dhaxa loo qaadan lahaa waxyaabaha la qaybsanaya ay dadku inta yare hayaan si fayra loo qaadi lahaa ma laga yaabi lahaa boralizationkan inaanu muhiim noqdeen marka resource-ka iyo maxaa ka dhexeeya isagana bismillaah horta isiriyo waan salaamaya iyo madashaba su-aashaydan hore ka gelayaa waxaan weydiinayaa banalka maalin walba waxaynu haynaa problem solutionkiisii oo intiin tagiska ku haynaa eliteskii bay ummadaynu nahay systemkana gudaha uguma jirno solutionkuna wuxuu ku koobnaadaanaa intaynan hoolka fadhida markaan ka tago labada xildhibaan ee systemka ka tirsan sidee baynu solutionkan aynu hayno maadamaynu systemka inaan ka mid ahayn oo ummad dhanoo isticmaali weyday ummaddeedii wax taqaanay ilidkeedii baynu nahay aynu u geyn karnaa gudaha ayaan weydiinayaa banalka awalna assalaamu calaykum waan u mahad celinayaa isir sidoo kalena waan salaamayaa banalistiga magacaygu waa asma laba su-aalood baan qabay su-aasha koobaad waxay leedahay loolanka siyaasadeed anagu qolada community ku-dhiiglayaashan ku jira oo reer waa iska sii garanaa muddo kordhin baa la sameynayaa oo taa xaggaasay u dhacday waxaba waanu sii ognay iyadoo lasii ogayay baa haddana laysa sii haystaa dadna u dhimanayaan wax layska sii garanayo oo layska sii qiyaasayo oo
la og yahay maxaa loogu marmaya anu su-aashaasan qabaa su-aasha labaadna maryam bay ku socotay dumarku xataa haddii ay u tartamaan kuraasta xataa haddii ay u tartamaan inay political position raadiyaan maba garanayaan faa'iidada ay ku soo celinayaan dumarka anigu imika yacni raggu madaxweynaha rabaabu kordhinaya wasiir baan rabaabu kordhinaya dumarka caadigay waxaan ka hadlayaa iska jooga suuqa wallaahi inaanay garanayn maxay ahayd inay gabadhi waxa ay ku soo celin karto waxa ay la qaban karto naa hebel baa wasiir rabe inaga siiya un weeyaan ma garanaysaa marka anigu waxaan jeclaan lahaa dumarkeena raba inay wax noqdaan inay dumarka ka dhaadhiciyaan waxa ay ku soo celin karaan waxa ay gabadhi u qaban karto haddii ay systemka ka mid noqoto marka waxaan kusoo gabagabeynayaa sidee baa looga dhaadhicin karaa Maryam aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay su-aaluhu si aanay iigu badan waxaan kusoo noqon doonaa banalka 5 minutes kalaan idinku soo noqon doonaa su-aasha ugu dambeysay baan ka bilaabi doonaa markaa waxaan siinayaa Dr. Maryam you have 2 minutes inaad ka jawaabto su-aashaas aad baad maasan tahay asma waxaa horta haddii aynu ku noqono mentalityga jirta iminka waxaynu ka hadlaynay saddexdan system ee istaba socda ee ah customary lawgii maxaa la dhahdaa kii caadiga dimuqrasigii kii kale religionka dumarka waxaa u dheer qabiil afraad oo la yidhahdo patriarchal oo ah system ku dhisan ninka inay horaysiiyaan patriarchal baa la yidhahdaa luqadda kale ma garanayo soomaaliga waxay ku noqon doonta maybe xildhibaanka ayaa inoo macnayn doona hadhowtoon markaa qabiilka afraad ee dumarka maskaxda ka haysta waxa la yidhahdaa ee ah adigu ma noqon kartid wax weyn goor kasta marka inantu yarayd ama dee waynu ognahay waxaa la odhanayaa inanku waxa ay noo soo qabtaa aduu aqalka joog kow waxbarashadii isagaa ka horeynaya marka waxay goor kasta qofka waxa lagu soo koriyo haddaan dhinacii dhakhtarnimadana idinka soo saaro qof kastaba psychologicalkiisa sida loogu soo ababiyo ayuu hadhow isku arkaa waa gender roleku halkuu ka yimaado marka inantii yarayd ee noqotay imika qofka weyn waxay u arkaysaa gabadhii la midka ahayd inayna waxba noqon karin because maxay ku soo kordhinaysaa adigu waxba kuma soo kordhinayn already waxa lagu oran jiray waxba kuma soo kordhinaysid production baa tahay goor kasta ilmaad dhalaysaa maalin kasta ilaahay keena hablaha yar waxa lagu yidhaahdaa qof baa kaa mas-uul noqon doona bread winner ma noqonaysid caruur baad dhali doontaa nolosheedaba saasuu ahaa even caruusadaha aynu isticmaalna caruurta yar markay ciyaarayaan waxa inamadana gawaadhi iyo motor bikes iyo waxaas loo soo iibiya hablaha yarina dool yar iyo ilmo yaroo haysatay iyo something like that so psychologicalkaas ayaa keenaya in ayna dumarku arkin in ay noqon karto wax marka maxaa lagu bedeli karaa waxa lagu bedeli karaa in laga soo bilaabo xitaa kii hore ka hadlayay ahaa in dadku is yeeshaan ay noqdaan dad ama qolooyinka isku professionalka dumarka lower levelka laga soo bilaabo family ha noqoto ama ha noqoto waxbarashada ama ha noqoto oo hablaha la tuso inay class monitor noqon karto inta ugu badan aad arkaysa hadday yihiin iskuulka mixed uu yahay inan baa u ah qofka leaderka ka hadlaya groupka kuwa socda kuwa ordaya everybody is men marka in hablihiina iyagu ay la tuso oo laga soo bilaabo from the lower levelka waqti dheer bayna ayayna sugaya haddaynu nahay kuwa hooyooyinka welibana ah oo hablaha inaynu dhisnaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay si fiican baan hadda u fahmay ujeeddada su-aasha su-aasha ku xigtee layna weydiiyey waxay ahayd dadka aqoon-yahanka ah theoriska ama aragtiyaha ka haya nidaamka lagu sixi karo inta badan meelahan ay ka sheegaan systemkii iyo nidaamkiina bannaankay ka joogaan sidee bay xuluushan iyo aragtiyahan u geyn karaan nidaamka su-aashaas waxaan weydiinayaa Dr. Maxamuud aad baad mahadsan tahay runtii see loo geyn karaa waa $1 million question laakiin anaga waxaan isleeyahay gaar ahaan cilmiyadayda waxyaalaha aan bartay waxaa ka mid ah xalinta khilaafaadka waxaan ahayn dadkii ugu horreeyay xalinta khilaafaadka soo barta soomaalida malaha ama somalilandba waxaan aasaasnay macad xalinta khilaafaadka lagu barto oo dad badan oo halkan soo fadhiya waayeel iyo dhalinyaraba ay ka soo baxeen ka aflaxeen ku shaqeeyaan hase yeeshee weli aan wafulin markaa waxaan islaamay horta dee gaadhsiiya walow kaana moogtahay ereyda ahaadee balaquu canii walow aaya horta waanu gaadhsiinay halka theoryga haddaan dib ugu noqdo theorygu ma aha in 18 qabiilo Soomaaliland loo qorituurayo qorituurku waxa kaliya kaga jira waxa weeye madaxtooyada
sida loo kala yeelanayo sida loo kala horeynayo waxaan ii sheegayaa iminka tan maanta taagan ee muddo kordhiso beri lagama hadlayo iminka may soo laagin qoladii commissionku guurtigiina ma hor taalo muddo kordhin ma jiraso theory-gayga wax muddo kordhin la idhaahdo kuma jiraso ree hebel baa le ree hebelna way ku xigaan marka ree hebel hadduu daynayo dee yeelkadood shantoodii sane ayaa ku xigtay marka laba caliba kuma wada hadlayaan marka waa theory-ga waxaan ka cudur daaranaya in halkan caawa ku sharxi karaynin marka xagga madaxtooyadu ma ka hadlaya xagga qoratuurka iyo sida loo kala horeynaye kolka dambe la kala horeeyo oo la sameynaya matalan waxa laga yaabaa inaad tidhaahdid qabiil 1% iyo ka moogtahay 60% laga yaabaa hadduu tirada soo baxdo sidee bay iskugu wareejinayaan markuu 60% uu soo gaadhay inuu yaqaan asal loo sii qaybsado waa nidaam dhisan oo nidaam aan sameynayna maaha waa nidaamka dadku doonayaan waa nidaamka dadku ay u dhisan yihiin waa nidaamka hadda aan ku noolnahay waa taariikhda dhamaanteed inay ka soo horjeedaa ay wadato iyo inta xagga fadhidaaba qof kastaba taariikh u wataa marka taariikh aan sameynayna maaha waa taariikh already jirta ayuun baa la isku aqoonsanayaa halkan ka yimid waxa weeyaan xal uu kalifay theory-gani 12 sano ka hor u sameeyay anu markaasi aan xilin khilaafaadka soo barteen marka macadka xalinta khilaafaadkana aasaasnay dee dhakhtarna ma ahayn oo xanuun ma daweynayn xanuun qof jirka ku dhaca injineerna ma ahayn marka waxaan ka fikiray mashaakilka weyn ee waddanka haysta abwaankuna uu ka hadlay xildhibaanku waa qabyaaladda waa nidaamkan is-haystee barbarisashka keenaya marka see looga bixi karayaa see looga bixi karaya waxa weeye in waddanka lagu sareeyo xalka u geyn karnaa nidaamka waxaan u geyn karnaa dee waa kuwan xildhibaanada la fadhiya oo anagii soo jeediyay yidhi uma baahnin ba dastuurka in la sameeyo waxa ciladu ay ka timid horta inaan ogaano maxaa ciladu halkay ka timid maxaa keenay horta nidaamkan is haystay hybridka inuu abuurmo waxa abuuray dawladda cigaal Allah u naxariistay madaxweyne cigaal ayaa runtii aabbo u ahaa nidaamkan is haysiga cidda fulinisada madaxweyne daahir ahaa ciddii daba marteen oo si daba socotaa wali sidoo moo daahir u qalday madaxweyne cigaal shirar baa lagu heshiiyey ka horreeyay waddanka muu joogin baa laga yaabaa nin suudaani u yeedhay dastuurii qor buu yidhi dastuurka wuxuu qoray dastuurka maraykanka oo kale dabeedna waa loo codeeyey codayntiina waxaa loo codeeyey dadka loogu sheegay dadkii codeeyaa ka mid ahaa waxaa loo sheegay soomaaliya somaliland sanduuq cad iyo sanduuq madow baa la dhigay dadkana looma sheegin waxa loo codeynayo odayaashii ka hor yimid ee yidhi waxaan ma soconaysana ciidan buu ku dalbaday madaxweyne cigaal oo suldaan barre gurigiisa wakil lagu weeraray waxay ahayd hase yeeshee waxaan maanta nasiibka yaalla waxa weeye see loo geyn karaa labadii nina waagaa madaxweyne cigaal ka soo horjeeday ayaa maanta waddanka u taliya yahay labadaa nin waxa weeyaan salaamaan maxamuud oo guurtida haysta oo odayaasha maantii la weeraray ku dhex fadhiyey oo lahaa mee cigaal ka daa nidaamkii aan isku heshiinay samee isagaa maanta bidida daabkayga haya waxaa kaloo ka soo horjeeday madaxweyne muuse ragii ka soo horjeeday u ahaa waxaa kaloo loo geyn karaa madaxweyne muuse maanta wuxuu ogaaday tusaale oo uu ka hadlaa intaasu jeerana ka hadlay arkay inuu nidaamkii socon waayey inuu kharash badan yahay inuu moogtahay maxaa la dhahaa xanaftiisii ay shaqayn weyday marka waxaan leeyahay dee aragnaye xalli waaye labada nin maanta u sarreeya labada nin waagaa ka soo horjeeda maanta waxaan rajeynaya xalliyaan xildhibaanada waxaan rajeynayaa halka u dambaysa lagu xallin karaya sida fudud haddaan soo dhaweeyo waxaan qodobka intaa igu daro waxa weeye dee ma adka xeerkaa shalay la soo saaro kaluun baa lagu qorayaa in waddanku ka guuray xisbiyadii badnaa bee lagu guuray su-aal baa waxay ahayd resourceska sida loo bixiyo oo ah qaab aan nidaamsanayn ama haddii taa la saxo polarizationku ma saxmaya marka su-aasha waxaan siinayaa dr mukhtaar xasan maydhane bismillah somaliland waxaa aada iskugu dhex jira xilalka siyaasiga ah iyo xilalka bureaucratiga loo yaqaano ama xilalka ay ahayd in farsamo uun lagu sameeyo anu waxaan qabaa su-aasha laakiin asalka ah ee mar walba aynaan ka jawaabin weli waxa weeye horta qabiili ma nahay kelmadda waan laynboodnaabay aniga weli ila tahay maxaa keenaya in dhakhtarka aad magaranaysaa u tegto eed ubadkaaga iyo naftaada iyo qoyskaaga aad ku aaminto aanad u eegin reer cisbitaalka hargeysa cidda mas-uul ka noqonaysana aad reer u eegto labadan jeer keebaa tahay adigu maxaynu mid uga fadilaynaa ka kale su-aalaha aasaasiga ah een u baahanna horta inaan isweydiino mar walba waxaynu qaadanaa waxaan isleeyahay sharaxyo layna siiye sharaxyo aynu inagu leenahay weli maaha inagu haddaynaan isweydiin war horta goormaan qabiili ahay goormaan reerahay goormaanan se ahayn horta waa biyo kama dhibcaanka marka ta resourceska iyo sida loo qaybsanayo
ma adeeg baa mise waa resource horta waa inaynu kala garanno ma qof ii shaqeeyaa mise waxa weeyaan waa qof dee aan biil siiyo waana dhinac bay kala xidhiidhaa su-aashii iminka haweenkoo kale dee ay soo dallaceenoo qolyahayagii ololaha galay waxaa laga yaabaa sucaad iyo akhyaar badan oo kalena de inay iyo sacdiye iyona inay nala xidhiidhiyaanba tan oo kale ay iyagna soo arkeene dee waa lana soo shaqo geeyey eg hadda u fiirso lanooma keenin waxqabta marar badan dadka muwaadiniinta ah ee dooranaya qofku waxay ku fikirayeen ninkan tolka ah ama xaajiyadan tolka ah dee shaqo geeya waynaynu aragno so sidee baad uga iibin kartaa waa laga yaabaa qofkan inuu heli lahaa shaqo ka fiican inuu dhaqaalihiisu ka wanaagsan yahay qof shaqo u baahan aanu ahayn waxaasoo dhan iyaga uma aha maskaxdooda dad badan kuma jirto hebel iyo heblaayo ma shaqo geynaabaa marar badan ku jirta arrintan markaa haddaynaan kala saarin waana halka awoodaha dastuurku weli muhiim ka noqonayo hay-adda shaqaalaha dowladda marka aynu hoos geyno xukuumadda waxa cad inay siyaasadoobayso yacni laba cali isma weydiinayso haddaynaan madax bannaanideeda ka shaqayn oo inaan ka shaqayn garsoorka madax bannaanidiisa oo inan ku eedayn karin waa la iga eexday shaqo aan xaq u lahaa inaan helo anoo muwaadina ayaa la iga eexday qandaraas aan xaq u lahaa anoo muwaadina ayaa la iga eexday haddaanan dacweyn karin oo inan cuquba ka dhalan karayn dheeligaa dastuurku ilaa iyo go'aamada ugu hooseeya ee waxa dareemaya qof yar oo facebooka soo dhigay taageero qof kale na waxa lagu qaadayaa dembi kuwa ka qayb gala golaha dhexe ee xisbiyada iyagoo xeerku ka mamnuucay inay noqdaan dad ku milma xisbiyadana inaan tallaabo laga qaadin waxa keenaya waa dheeliga aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xildhibaan mukhtaar su-aalihii xaggan iiga yimid waxaan u malaynayaa badankooga waa laga jawaabay su-aal aniga ii harsanayd baa waxaan weydiinayaa injineer cabdulfataax xanaftan doorashada ama qaybsanaantan bulshada ee aynu ka hadlayno sidaynu ognahay inta badan dhinacyaa ku tartama doorashada dadaal fara badan buu dhinac walba geliyaa hanti badan buu geliyaa ololo badan buu geliyaa natiijadii markay soo baxdo waxaa lagu dhawaaqaa mid guulaystay oo farxad iyo dabaaldeg sameeya iyo mid laga guulaystay oo waxaasoo dadaal u sameeyey iyadoo jirto haddana laga guulaystay oo los ama khasaare dareema 5 sane soo socdana isagoo khasaarihii dareensan haddana laga rabo dadaal kale inuu galo marka nidaamkaas ah inay hal cidna guulaysato hal cidna khasaarto markaste kaalin intee leeg buu ku leeyahay qaybsanaantan xooggan sideese looga tallaabi karaa waxyaabaha lagu yarayn karo specificalina aynu uga hadalnay ta madaxweynaha aniga fikirkayga 4 qodob ma kusoo horta koobila oo tana su-aashaaduna ku jirayso midi waxa weeyaan war hadba haddaynu nidaam intaynu qaadno aynu haddana ka tagno waadoo gaari wato intaad ka tagto gaari kaloo meel yaalla haddana aad raacdo taa kana aynu tijaabino waana faras faarno faras kaloo fotoqarar baa laga qaadaa kolba haddii inta nidaam intaynu baaki garayno mid kale ku goonno macna ma sameeyo macnaheedu waxa weeye war kan horta hore aynu samaysanay waxyaalihii ka qaldamay ma gufayna ayaa meesha yaalla betel madaxweynaha soo qaadayna hadii jeer extension baa dhaca 3 xal oo kaliyaynu waxaan xasuustaa markii ugu horeysay la soo kor laydi extensionka hal lagu sameeyo ee guurtida hor fadhiisanay dastuurka 2 qodob baa ka hadla qodobka 3 iyo qodobka 28 ayaa ka hadla waxyaalaha extensionka lagu sameyn karayo doorashada labada qodobba kuma jiraan wax technical ah commissionku haddii ay isaga ka timaado miyaa la kordhin karaa mise lama kordhin karo waxaan xasuustaa beriga waxaanu soo gudbinay timeline aanu leenahay haddaanu commission karnay waxaanu u baahannahay inaan muddada intaa leeg aanu ku qabsan maadaama aanay abaara dhicin dagaalo dhicin aafooyin dhicin musiibo dhicin aanay istilin dee waana lagu qabsaday waxa lagu yidhi maxaa idiin geeyey idinku xataadan baashin ma qaban karno deetana halkaasa ula daaq tegaynaa ayaa dhacday marka qodobkaasi extensionka horta maxaa asal u ah inaynu mararka qaarkood isweydiino weeyaan waa qodob weeyaan marka 3 qodob baynu kusoo koobi karnaa mid waxa weeyaan war haddii kordhintu aynu mar walba marka la joogo madaxweyne aynu u baahanay muddadii ka badan dee muddo xileedka aynu bedelo
muddo xuleedkeeda halka imika 5 sanatay dee 7 sanadood aynu ka dhigano dee tala 7 sanadood haynoo noqoto muddo xuleedkeena waa qodobka labaad waxa dhaca dalalka qaarkood waxay qoraan waxaan bisha March axadeeda labaad ayaa muddada doorashadu noqon kartaa whatsoever haddii ay dhacdo duruuf keensataa la daaq tag ma aha waxa imanaya waxyaalo xadadaya waxyaalaha xadadaya waxa weeyaan haddii ay duruufaha caynkaasi yimaadaan waa technical baa lagu sameeyaa muddada caynkaas baa lagu sameeyaa iyaduna waa qadiyad kale oo aynu sheegayno ku xallin karino qodob saddexaad miyaynu ku dayno war haddii bahashii aynu awoodihii ku kala tegayno daadar bahasha baarlamentary aynu ku celino aynu saddexda xisbi walba wuxuu soo doortay halka ha keeno madaxweynaha laga dhex doorto baarlamanka haddii deetana la garan waayo madaxweynuhu dee baarlamanku iyagu dadku shacabka ha matalaan dadka iyagu ha ku doortaan waana less cost waana qaab aynu inagu isku xakamayn karayno oo deetana xuduudii ku yarayn karayso inoo qaab aynu odhan karno aynu uga wadagno adeer mabay dhicine war imaka waxyaalihii kale ku dhacay imaka aynu ka soo baranay ee keena doorashada in imakaynu markaynu maanka qabno ka hadallo maxaa inoo keenay ilaa iyo weligeen waxaynu ka hadalnaa qadiyadda la yidhaahdo tirakoob lama tirakoobo halkaasay taagantay mar kasta oo mucaarad dibadda jooga wuxuu ka hadlaa commission loo siman yaho 9 qof ah markuu dibadda jooga 9 buu rabaa mar alle markuu yimaadana haddana meeshii way ka baxdaa halkii bay taagantay muddo xileedka halkii bay taagantay marka waxaan anigu qabaa arrimahan aynu dood haddaan ku soo celiyo war waxyaalaha lagu xallin karaya waxa weeyaan yaynaan anigoo professorka xallinta khilaafaadka yaynaan nidaamka haddana imika markaba guurine war horta keenan hore aynu kabkabanno oo meelaha u baahan gufaynta aynu gufaynta ku eegno inagoo maankeena miirkeenaba qabno aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay injineere waxaan kala baxay su-aashii dhaaraktiga haydeen ku weydiiyey qaababka lagu yarayn karo in mar kastana cidna ay wada guulaysato cidna ay wada khasaarto in مثلا nidaamka baarlamaaniga lagu furdaamin karo isla su'aashaas waxaan weydiinayaa xildhibaan xasan Saleebaan sidee baa lagu yarayn karaa in mar kasta cidna ay wada guulaysato cidna ay wada khasaarto oo ah isha inta badan ay ka imanayso polarizationka amaba qaybsanaanta bulshada horta markaan isweydiinayno cid guulaysanaysa iyo cid khasaaraysa mar kasta waa ina daanweyne waayo nolosha tartanu jooga kulba waxaa lagu jiraa ama siyaasad ha aado amba ganacsi ha aado ama aqoon ha ahaatee horta waa lagu tartamaya haddiiba tartan yimaadana kolle cidun baa guulaysanaysa laakiin su-aasha meesha ku jirta waxa weeye somaliland dee maanta inankii dhashay maalintii calanka la taagay waa 30 jir wuxuu ku garaadaystay ama jaamacada kaga baxay isagoo doorashooyina dhacayaan murano jiro murankana uu qayb ka yahay bulshadeennana waxaa jira dad liida oo aqoon-yahana anu maanta ma tilmaami karo meel inoo bisil hadday tahay culimo hadday tahay maxay ahaydey siyaasiyiin iyo hadday tahay ganacsato oo ka daacad ah halkayna xanuunaysa ee bulshada bugta marka horta danihii shakhsiga ahaa ee qof kasta riixayay ayaa kala weyn waxaa meesha ku jirta xaqiiqda iyo runta markaynu isdul taagno waxaynu ka shaqaynano iyo waxaynu doonaynaa waa kala laba somaliland qurux badan baynu doonaynaa somaliland laisjeceliyahaynu doonaynaa waynu naqaanaa sidii somaliland ku qurux badnaanayso mase samayno qofka dibadda markuu joogo iyo marka uu gudaha joogo kala duwanaanshaha uu leeyahay ayaan idin sawiraya anaga mukhtaar waxaanu ahayn mudanayaal golaha wakiiladan ka tirsannahay iyo faysal iyo shalay markii aanu banaanka joognay waxaanu ku ololeynaynay in systemka dowladnimo uu damaanad qaado qofku waxa uu xaq u leeyahay inan baa ku imanaya wuxuu ku odhanayaa warniyo wadigiisaa ku ololeeyey anna waan kuu soo codeeyey bilaa shaqaan hee bal shaqaygee war wuxuu xaqa u lahaa horta uma damaanad qaadi karaba haddama garatay waayo xeer si dhaba ugu damaanad qaaday ayaan jirin tusaale ahaan haddaad wasaaradda maaliyadda ka shaqayso agaasimo tahay oo agaasimo waaxeed aad tahay oo tii ilaahay kuu timaado waxaa jira inaan wasaaraddan ka shaqaynayo 20 sannadood jooga
ku qanci maayo inuu aqoontiisa iyo khibraddiisa iyo waayo aragnimadiisa fuulo sida systemka dowladnimo fasaxayo laakiin muxuu ku qancaya soo kaxeeyo aqalkiisii isagoo masteraba waxa laga yaabaa markay wasaaradda soo galayaan xitaa inuu daba socdaba laakiin hay'adda UNDP la yidhaha ama organisationada kale haddii position shaqo ka bannaanaado inay keena aqoon-yahankii aqoontiisu fuulaa oo hadduu waayo iyo haddii uu helaba uu ku qanacsan yahay marka ma waxaan caawa iska dhaadhicinaynaa waxa institution yar oo inaga dhex shaqaynaya uu ku guulaystay ayay dowladnimadeena ku guulaysan kari laada no way waxaynu u baahannahay ilmaadeerayaal inta aynu afka ka hadlano inaynu ficilka ka hadalno caloosha ka hadalno daacadnimada ka hadalno ma jiri karno boqolaal sano runtii laakiin waxaynu samaynaynu qabanaa jiri karaa maalin dhowdan meel tegay dadka madow lagu dhisayo Bristol ku yaala bridge dadkii dhisay 300 sanadood ka hor bay rawaxeen laakiin bridge-kii baa jira anu ma baqaan wax alla waxaan ugu tagi karo ma gabayadaydan ugu tagaya jahraawi baa buug dhan ka tagay hadda ma garatay marka waxa loo baahan yahay in aynu sidan si ka duwan u dhaqanno siyaasiyiintuna waxa ummadda ka qaldama iyaga qalda waxaasna waa isku muuqashadooda iyo isriixriix xooga aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xildhibaan xasan saleebaan mar labaad baan idinku soo noqon doonaa marka waxaan dhiirigelinaya maadaamaanu waqtiga kusii dhowaanayno ciddii faalla haysa comment haysa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسر إيو إنتنا قلاء كل واحد يكون سلام يقف ولا مسبك كفردي هالكن هذين رنت يسوع شيئين وهذين رن شيئين هرت الدولة شقينا يسها أو مال إن جاينا يسها متشرتو أو دون يسها إن هرجيسا ونكورساناتو وهي الدولة ده هرجيسون بتشوكته مدة بلشدينا وحكوا دات سنت هاي قبل هذا إنتي كله كرسي بين نسكت لينا madaxweyne leeyahay 5 wasiir waxa la abuuri karaa intaasoo shaqo iyo xalba qabyaaladina weligeed bad cadaalad ma sameyn maxamuudow professor qabiil cadaalad sameeyay weli ma inaan arag cadaaladana waa iska adagtay sida loo sameeyo laakiin ani waxaan qabaa hadii daadajin la keeno oo dadka wax laba mashkhaladood ba aniga ay muuqdo khalad waxa weeyeen dadkeenu technicals ma leh inankaas ayna weydiiyeen yiri maxaa sidee loo gelin karaa waxa weyn technicals waxa dadkii iman lahaayee maaha agaasimo in madaxweyne soo magacaabo iyo cid kale la mid ah waa dadka shaqada hoose ee yaqaan waxyaabay dawladdu u degalada wax weeye wasaarad qola lacag siinaysa maalin baa la yiri lacag baan waxay tiri maxaan lacag siiya agaasimahan taray gareeyo warta dabal bedelaay marka waxaan taan of riskan socda wuxuu ka luminayaa dawladnimadii inay wixii shaqeeyaan oo meel gaadhaan taas waa khaladka ugu weyn ee u horeeya waxaan u baahnay in la kala sooco waxa la dooranayo madaxweyne intuu magacaabayo iyo dadka la doonayay inay dalkan dawladda wadaan number 1 number 2 ga labaad aniga waxay tahay dawladdan aynu haysana in la daadajiyo waayo qabyaaladan iyo hawshan iyo waxan yar hargeysa loo soo doonay waa laga saar marka inanka laascaanood ugu tagto hawshiisu ee uu halka shaqadiisa ka helayo jaamacadiisii waxbarashadiisii baasaboorkiisii license-kiisii muxuu ahaa driving license-kiisii wuxuu hargeysa ka soo doontaa ay u yaraato ee ka jooga maxay tahay boorame ay la mid noqoto waxaan la isku haysto dhami inta badan way yaraanaysaa murankan aynu ururinay ee ku soo ururinay caasimadda hargeysana wuu degaya bay aniga ila tahay waxaanaynu u baahannahay dadkuna way majuur garoobayaan markay dawladnimadu u tagto iminka in yaroo inaga ah iyo in isku wareegto wadaadada iyo maxaa la yidhahdaa siyaasiyiinta iyo maxaa la yidhahdaa inta irbaac mushtarka iyo in yaroo halka sare joogtay iyo inteenan ayaa dalka waashay laakiin baashu hadday degto ay hoosta tagto dadka hoosena wuu majuur garoobaya wuxuuna wuu isbedelaya waana la sixi karaya haddaynaan doonayn inaynu sidan u waalaano waxaynu u baahanay dawladnimadu inay daadegto hoosta tagto mahadsantihiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay marwa sacdiya mukhtaar maydhane dumarka lama soo shaqo geylin anagaa riixanay reeraha annagaa riixano spaceka doonane dirqibaabana lagu siiyey inaan xataa tartanno raggun baa la shaqo geynaya raggaa la shaqo geeya dumarka lama shaqo geeyo taas waa mid sixida waxaan daba socdaa cabdifataax soo jeedimuhu ka hadlay muramaadka xallin karaya runtii waa midaan muddo badan aniguna aan isweydiinayo islahaa maaragta sida muramaadkan siyaasiga ah soo noqnoqonaya ee weliba laga soo bilaabo 2002
saddexdii markii riyaalo la doortay kadib waa marka madaxweynuhu qura la isqabsada sababtaa waxaynu arkaynaa culayska uu kursigu madaxweynuhu leeyahay tan golaha wakiilada iyo degaamada iyo waxaa cidiisma qabsato halkaasaa laga garan karaa waddanka oo dhan iyo nimanka siyaasiyiinta focuskoodu kursigaasoo qura inuu saaran yahay kursigaasna helistiisa waxaa la xidhiidha privilege badan iyo power badan oo ahayd in mar hore la kala dhimo marka anigu taan cabdifataax tiladuu soo jeediyey horta problemkan iminkayna haysta dhibaatadan ina haysata murankeedu ee dhow aniga way la adagtahay sida loo xaliyaya sababtaa ciddii xallin lahayd ayaa burankii qayb ka ah oo xeerkan iminka ugu dambeeya lagu kala jabay golaha wakiiladu ku kala jabay waxayna tusaysaa inaan meel inoo bannaani jirin go-aankii maxkamadan la raacin oo isna waxaa la yidhi murankiibuu qayb ka yahay kan iminka go-aankii daraad soo baxay baa la leeyahay qayb buu murankii ka yahay marka waxa keliya uu ku iman karaa iyadoo win-win situation iyo compromise ay ku sameeyaan qolyaha iminka isku haysta kursiga madaxweynaha waa taana waxay ku iman kartaa iyadoo la helo cid riixda initiativeskii la isku dayay ee badnaa midna muu shaqayn marka taasi waa taa laakiin anigu mustaqbalka ayaan xoogga saari lahaa mustaqbalka waxaan xoogga u saarayaa sababtaa waxaynu u baahannahay inaynu long termka noolaano oo dadka dhalinyarada ah ee iminka dambeeya ay nidaam dowladeed oo bilaa murana ku noolaadaan marka anigu waxaan aad u taageersanahay in dib loogu noqdo oo taasina ay u bannaan tahay iminka golahan wakiilada hadduu ilaahay ka samata bixiyo muranadan iminka taagan inay ka howlgalaan in dastuurka inta dib loo eego at least parliamentary government la sameeyo republicanka laga guuro oo madaxweynuhu iyo xisbigu uu ka soo dhex baxo sida iminka tan ingiriiska oo kale doorasho kale ma galaan way is eryadaan dabadeedna xisbiga majority-ga haysta intaa uu dowladnimada haystunba kolba ra-iisul wasaaruhu ka soo dhex baxaa aniga waxay la tahay muramaadkeenuna wuu ku yaraan lahaa kharashaadkan maalayacniga inaga baxayaana ummaduna way ku kobci lahayd dhibaatada reeraha loo daadejiyey loo raray sababta cidda reeraha u rartay qabyaaladu waa xisbiyada reeraha kama imanin marka anigu waxaan suran lahaa nidaamka bal haddii laga howlgeli karayo doodo kale ha laga qabtiyo aad iyo aad ayaad u mahadsantahay sucaad ibraahim isir maxadkaad baan u salaamayaa waan ku hambalyaynayaa barnaamijkan ay soo qabteen banaliiskana sidoo kale waan salaamayaa iyo marti sharaftaba su-aashaydani waxaan toos u weydiinayaa xildhibaan laab saalax hadda aboonkii maaha waan ka afiifanaya xildhibaan laab saalax baan weydiinayaa su-aasha xildhibaan sidaan ka warqabno mooshinbaa golaha baarlamaanku wansixiyey waxaad ku jirta liiskii xildhibaanadii ka soo horjeeday in markaa mooshinkaa loo gudbiyo golaha gurtida sidoo kale somalilandna waxay kusoo caanamaashay in markaa win-win solution lagu khilaafaadka siyaasiga lagu dhammeeyo bal waxaad caawa nala wadaagtaa xalka aad adigu haysay maadaama aad ka hadlaysay caawa dhan khilaafka iyo mashaakilaadku leeyahay iyo kala guurku sababo bal xalka aad haysay ee aan ahayn in habkaa lagu dhammeeyo baarlamaanku uu sameeyey nala wadaag waa mahadsantihin بسم الله السلام عليكم ورحمة الله قلا ها سؤال شيء ذو كوبنته أنا واحد ملاينا يا مشاكلكو ملاينا ما ورا هو مشاكلكو حكاية منه وكوربشنك خوف مسؤولة يلا مقعبة يا سنة جدهد